Charlie Kirk oo safka hore uga jiray dadka ugu caansan marka ay joogto afkaarta xagjirnimada diimeed iyo midda midab ee Mareykanka iyo dalalka galbeedkaba ayaa shalay lagu kharajiyay barxadda jaamacadda Utah Valley goor uu ku guda jiray madal-doodeed ka mid ahayd kuwii uu ku sheegi jiray in aadista iskuulka ama jaamacaddu tahay meel aadanaha waqtiga looga lumiyo aanna nolosha wax u kordhin. 31 jirkan oo ku caanbaxay ololihiisii iskuulku waa scam ama xatooyo dadban ayaa si lama filaan loo kharajiyay iyadoo Mareykanka gaar ahaan xisbiga midigta oo uu taageeri jiray haatan ku jiro xaalad baroor deeq iyo lama filaan ah. Donald Trump ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee shaaciyay geeridiisa, taasoo ka dhigaysa in geerida ninkani si xooggan u taabatay xukuumadda Mareykanka. Calanka ayuu amray Trump in hoos loo dhigo, waxaana la warinayaa in xukuumadda Trump qaadi doonto tallaabooyin ka ballaaran in kaliya la xukumo eedeysanaha loo qabtay dilkii ninkan. Charlie waxa uu bilowgii magac ku helay u ololeynta horreynta caqiidada Kirishtaantiga iyo caddaannimada. Waxa uu ku jiray dadka necab soo galootiga iyo Muslimka ee aaminsan in ku soo badashadooda galbeedku sababi doonto inay ugu dambeyn isku ballaariyaan dalalka galbeed diin ahaan iyo maamul ahaanba. Afkaaraha kale ee uu xagjirka ku ahaa waxaa ka mid ahayd diidmadiisii jiritaanka Falastiin oo uu dhulka Falastiin ugu yeeri jiray carro ay iska leeyihiin dadka haysta caqiidooyinka Kirishtaantiga iyo Judaismka ama Yuhuudda. Waxa uu oran jiray waxa dhulka la yiraahdaa Judea Samaria waa magac ay dhulka Falastiin u yaqaanaan reer galbeedka, halka ugu yeera dhulkii ballanqaadka kuwa oo rumaysan inaysan jirin wax la yiraahdo carro Falastiin. Kirk oo haatan horgal u ahaa olole la yiraahdo soo laabashada Mareykanka, The Turning Point of USA, waxay u badan tahay inay xukuumadda Trump xoojiso qayb ahaan qadiyadihii uu u taagnaa oo ololahani ka mid yahay. Waxaana sida falanqeeyayaashu sheegayaan dilkiisu yeelan doonaa saameyn ka ballaaran in la xukumo qofka looga shakisan yahay inuu dilay oo haatan FBI-du sheegtay inay gacanta ku hayso. Sida la qiyaasayo, dilkiisu wuxuu saameyn ku yeelan doonaa sharciyada hubhaysiga ee rayidka Mareykanka, inkastoo ay ahayd arrin uu lafahantiisu u ololeyn jiray inay caadi tahay in dadka uu taageerayay waa caddaanka ee ay hubka haystaan. Haddana dhacdadan waxaa loo badinayaa inay wax ka beddelayso shuruucda hubka waddanka. Sidoo kale waxaa cabsi laga qabaa saameynta ay ku yeelan doonto cidda uu ku jinsiga iyo caqiidada noqdo qofka sababta u noqday gabagabada noloshii ninkan.